Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalaha qaaliga kusoo dhawaada barnaamijyadeena caafimaadka indhaha. Maanta waxaan ka hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo saddex wax oo aad iyo aad u sababa qofka in indhihiisa gaduutaan. Indho gaduudka waxyaabo aad iyo aad u tiro badan ayaa sababa, laakiin saddex waxa oo aad iyo aad u caansan ayaa maanta ka hadlayna hadduu Ilaahay yiraahdo. Midka koowaad waa qofka inuu jirkiisa allergic ku jiro, xasaasiyad inay jirka ka jirto. Xasaasiyadda normalka qofka markuu waxyaabo oo jirka dhibsanaya markuu qofka isticmaalo, inta badan indhaha ayuu xoqaa kadibna indhaha gaduud ayay noqonayaan. Marka waxyaabaha aad iyo aad u sababa ayay ku jirtaa. Sidoo kale baalasha isha in inflammation uu ka jiro, caabuq inuu ka jiro. Sidoo kale dhaawac inuu jiro. Dhaawac isha markay ka jirto qofka, waxyaabaha ugu badan oo indho gaduudka sababaan oo isha qofka indhihiisa inay gaduutaan ay sabab. Laba waxyaabaha aad iyo aad u sababa indhaha qofka inay gaduutaan waa qofka indhihiisa inay qalalan yihiin. Indho qaleelka waa kasoo hadalna waxyaabaha sababa, laakiin qofka markay indhihiisa qalalan yihiin sidoo kale indhihiisa way gaduudan yihiin. Sidoo kale waxaa kaloo sababi karo qofka inay meeshan oo subconjunctivahan oo qaybtan hore ee cadaanka inuu dhiig uu fadhiyo. Waxyaabaha badan ee sababa indho gaduudka waa. Mideena saddexaad ee ugu dambeeyo waa dadka sigaarka caba, waa smoking ah. Dadka sigaarka caba aad iyo aad ay indhooda gaduudan yihiin, oo dadku waa laga garan karaa qofka inuu sigaarka cabo iyo in kale, maadaama indhihii maanta oo dhan qashinkaas oo soo bixinayo, oo hawadaas oo maanta oo dhan sigaarka uu ka qaadanayo banaanka soo bixinayo. Meesha ugu dhowna afka iyo sankana aad iskugu dhow yihiin iyo indhaha. Qofka indhaha toos qashinkaas u galayaan oo indhihiisa aad ay u gaduudanayaan. Sidoo kale dadka aanan seexanin, most common dadka aanan seexanin waa dadka aan indhahooda aad ay u gaduudan yihiin. Maanta saddexdan waxaan ka hadlayna oo indho gaduudka sababo. Waa idinkaga mahadcelinaya daawashada videogan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.